soo dhawow casharo accounting ah oo ku bixi doona luqadda Soomaaliga ood kala socotootid channelkayga Arman Accounting. Fadlan like ka saar, subscribe si aad ula socotid casharada dambe. Trial balance-ga waxaa lagu liis gareeyaa balansyadii manager-keena si lagu hubiyo wixii khaladaada ee ku jira manager-keenii inta aan loo gudbin external userska. Trial balance-gu wuxuu ka kooban yahay account-nadii ku xusnaa manager-keena, financial statement-ka account walba dhinacu raacayo, iyo debit iyo credit kolba kuu noqonayo account kasta in lagu qoro. Waxaa ugu horeeya oo aynu soo qaadan doonaa kashka banka inoo yaala oo balansigiisu ahaa 43,550. account-kan oo ka mid ah statement of financial position oo inoo tegi doonaa markayn balance sheet-ka samayn doono qaybteena balance sheet-ka dhinaca debit-ka. Trial balance-geenana wuxuu ka galay dhinaca debit-ka. Waxaynu trial balance-geenii ku liis garayn doonaa oo account-ka ku xiga noqon doonaa capital-ka oo statement of financial position ah. Credit side-kana inoo yaalay balance ah 50,000 oo aynu geyn doono trial balance-geena dhinaca credit side-ka. waxa aynu trial balance-geena inagu xigo oo aynu ku liis garayn doonaa account-ka manager-keena inoo yaala ee la yidhaahdo purchases oo ka mid ah statement of comprehensive income oo debit side-ka inoo yaalay 12,000 oo aynu geyn doono trial balance-geena dhinaca debit-ka 12,000. waxaan liis garayn doonaa account-ka payable-ka ee inoo yaala manager-keena oo ka mid ah statement of financial position. credit side-kana inoo yaalo 7,000 ee credit side-ka inoo yaalo waxaynu ku liis garayn doonaa trial balance-geena. trial balance-geena waxaynu ku liis garayn doonaa oo kale account-ka sales-ka oo manager-keena inoo yaala. sales-ku wuxuu ka mid yahay statement of comprehensive income oo dhinaca credit side-ka inoo yaalo 12,000 oo balance ah. 12,000 ee balance-ka ee credit-ka inoo yaalo waxaynu geyn doonaa listiga trial balance-geena dhinaca credit-ka oonu dhigi doono. waxaynu liis garayn doonaa account-ka rent-ka la yidhaahdo oo ka mid ah statement of comprehensive income oo debit side-ka inoo yaalo 450,ka waxaynu ku liis garayn doonaa oo geyn doonaa trial balance-geena dhinaca debit side-ka oo aynu dhigi doono. receivables-ku wuxuu ka mid yahay accounts-ka statement of financial position oo debit side-ka inoo yaalaan balance ah 6,000. 6,000 ee balance-ka waxaa loo rari doonaa oo la geyn doonaa listiga trial balance-ga dhinaca debit-ka. account-ka ugu dambeeya ee liis garayn doono waa account-ka la yidhaahdo motor vehicles oo ka mid ah statement of financial position. debit side-kiisana inoo yaalo balance ah 7,000. 7,000 waxay ku liis garayn doonaa debit side-ka trial balance-geena.
imika waxaan soo liis garaynay akoonnadii managerkeena oo gebi ahaanba aynu ku soo liis garaynay trial balancegeena. waxaa loo baahan yahay in debit side-kana gaar ahaan la iskugu geeyo, credit side-kana gaar ahaan la iskugu geeyo si ay isku leekaadaan. hadday sax tahay shaqadeeni ay soo qabanay, waxaa isleekaan doonaa debit side-keena iyo credit side-keena oo baalansiyadoodu isku mid noqon doonaan. hadday khalad ku jiro, waxaa kala duwanaan doona balanceska debit side-keena iyo credit side-keena. haddaba si aynu ogaano wixii khaladaada amba inay sax tahay shaqadeenii, aynu isku soo geyno labada dhinac marba mid. debit side-keena waxaa inoo yaalaa 43,550 oo loo geeyey 12,000 oo loo geeyey 450 oo loo geeyey 6,000 oo loo geeyey 7,000 oo noqonaysa 69,000. credit side-keenana waxaa inoo yaalaa 50,000 oo loo geeyey 7,000 oo loo geeyey 12,000 oo la mid noqonaysa 96,000. imika halkaa waxaa inooga muuqdaa in debit side-keenii markii laysku soo gooyey uu noqday 96,000, credit side-keeniina marka laysku soo gooyey uu noqday 96,000. ay debit side-keena iyo credit side-keenu isleekaadeen. taas waxay ku caddaynaysaa in ay xisaabteenii oo dhan sidaa ay sax ku tahay. aynu qaadi doono stebiska inugu xiga xisaabkeena. halkaa waxaa ku dhammaaday trial balancegii oo inoo soo xidhmay. waxaynugu xigi doonaa closing inventory casharka inugu xiga oo noqon doona.